Asalaamu calaykum soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa miisaanka saxda ah ee ilmaha marka ay dhashaan ilaa iyo sanadada ugu horreeya noloshooda waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkan miisaankooda meeqa ayaa laga rabaa markuu waqtigaas jiro intaasoo bil markuu jiro intaasoo sano markuu jiro cunuga miisaankiisa meeqa ayaa laga rabaa ayaa muuqaalkan kaga hadli doonaa si hooyooyinkii u ogaadaan cunugooda in miisaanka saxda ah uu yahay iyo inuu ka yaryahay iyo inuu ka badan yahay si ay ula socdaan xaaladda isbedelada iyo korinshaha ilmahooda ayaa muuqaalkan kaga hadli doonaa insha Allah soo dhawaada haddii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsantana like noo saar asxaabtadan usii share garee soo dhawaada mar labaad waxaan kaga bilaabi doonaa cunuga markuu dhasho miisaankiisa ilaa iyo sanadada ugu horreeya noloshiisa cunuga markuu dhasho waxaa muhiim ah hooyada inay la socotaa miisaanka cunugeeda si ay ula socoto hadhowtii korinshihiisa miisaanka inta loogu talagalay miyaa culeyska cunuga maka yaryahay maka badan yahay si ay ula socoto waxaa qasab ah inay hooyada og tahay cunugeeda miisaanka uu ku dhashay fadlan markii aad dhalaysid isbitaalka aad joogtid weydii haddii ayaga ay kuu sheegaan inta badan ayagaa sheegaan hadday dhacdo inaan lagu sheegin adiga weydii cunugeyga meeqa kiilo waaye dheh meequu ku dhashay intaadan isbitaalka kasoo bixin aan ku dhashay weydii meequu waaye kiilo dheh si hadhowti aa ula socotid cunugaada kiilooyinkiisa iyo korinshihiisa saa ula socotid miisaanka dabiiciga ah ilmaha ay ku dhashaan waa 3 kiilo 3 kiilo bar ah u badan walow ay jiraan 2 bar 2 ilmo ku dhashay ay jiraan laakiin inta badan ilmaha waxay ku dhashaan 3 iyo 3 bar ayay ku dhashaan walow ay jiraan kuwa 4 ku dhashay ayaga xataa marka waxaan kasoo qaadaynaa meesha macquulka ah oo cunugaada inuu ku dhashay 3 kiilo hooyada marka ayada xisaabta doonto hadhowtii haddii mar ay xisaabta si la isugu daraayo ay fahanto iyo cabir kasto bil kasta meeqa ku siyaadaysa haday fahanto hooyada haddii cunugaada 2 bar uu ku dhashay hadduu 3 bar ku dhashay xisaabta adiga waa ka shaqayn kartaa haddii aad fahantid marka waxaan isku dayaa insha Allah inay fahantiin cunuga markuu dhasho 4 bilood oo ugu horeysa noloshiisa cunug waxaa ku siyaado 750 kilogram aa ku siyaado 750 ayay ku siyaadaysa 4 bilood u horeyso marka 4 bilood u horeyso oo min 750 isku dar waa meeqo xisaabi calculator soo qaado 750 oo bisha koowaad ah waxa ku daray 750 oo bisha labaad ah waxa ku daray 750 bisha saddexaad ah waxa ku daray 750 kilogram oo ah bisha afraad 4 bilood oo min 750 ah markaas ku darto waxay imahay 3 kiilo imaanay markii aad calculator ku qaatid waxay imaanay 3 kiilo marka cunugaada meeqo ku dhashay miisaanka waa ku daray marka cunugaada markuu 4 bilood jiro waxaa leedahay cunugeyga meeqa bilood jira 4 bil miisaankiisa meeqa waa haddii cunugaada 3 kiilo uu ku dhashay 4 bil markay dhamaato cunugaada bisha afraad u dhamaato waxaa laga rabaa inuu ahaado 6 kiilo haddii uu wax yar ka yaryahay ama wax yar uu ka badan yahay waxba dhib ah ma lahan laakiin waxaa daran inuu 2 kiilo camal uu ka yaryahay haddii markii uu 4 bil jiro cunugaada 3 kiilo uu ku dhashay 3 kiilo oo 4 bil ku siyaadi lahayd oo min 750 kiilo garaam ah 750 garaam ku siyaadi lahayd ay cunugii markii 4 bil ay u dhamaatay 2 kiilo inay xisaabta caadigeed ah sugaysa ay ka yartahay aragtid markaas waxaa dhici kartaa isbedel jira laakiin haddii 1 kiilo ka yar yahay ama 1 kiilo ka badan yahay wax macne ma laha laakiin 2 kiilo hadduu ka yar yahay markaas oo kale waxaa dhici kartaa okay dhakhtarka caruurta ayaa la xiriiraa maxaa qaldan cunuga korinshihiisa oo ugu yaraaday okay 4 bilood u horeyso waxaan dhahnay min 750 garaam aa ku darsamayso cunuga culeyskii uu ku dhashay 750 oo 4 bil hada ku dhufato waxay maahay 3 kiilo miisaanka cunuga uu ku dhashay markuu dhashay miisaankiisa intuu ahaa ku daray oo ahaa 3 kiilo 6 kiilo ayaa laga rabaa inuu cunugaada ahaado okay bisha 5aad iyo bisha 6aad iyo bisha 7aad iyo bisha 8aad afartaas bil cunugii kiilo bishii waxa ku siyaadayso 750 garaam hadda way kasoo yaraanay waxa ku siyaadayso nus aa ku siyaadayso haddii wuxuu ahaa 750 hadda way soo yaraahay marka 4 bilood dhexe way soo yaraahay waxay imaahay nus inuu ku siyaado okay marka 4 bil meeqa imaahay markii bishii nus kiilo ay ku siyaadayso waxay imaahayso 4taas bil in 2 kiilo bis siyaado 4 bilood koowaad cunuga markuu dhashay ilaa 4 bish afraad kaga dhamaanayso waxa ku siyaaday meeqa ku siyaaday 3 kiilo ku siyaaday laakiin 4 bilood ku xigto miisaanka cunugii wuu naaqusa oo inta ziyaadi jirta 4 bilood hore ma ziyaadayso maadaama cunuga korinshihiisa uu soo fiicnaaday 750 garaam meeshii ka ziyaadaysay hadda waxaa ziyaadayso nus ziyaadayso nus kiilo ayaa ziyaadayso marka 4taas bil cunug wuxuu heli karaa 2 kiilo marka haddii cunugaada 4 bilood hore uu helay 3 kiilo waxa ku darta 4 bilood oo dhexe
oo ah 5 6 7 8 wuxuu helay 2 kiilo meeqa kiila maraysa 3 kiilo hore ilaa 2 kiilo dambe oo hadda ku darsanto isku dar waa 6 kiilo iyo cunugaadii miisaankii uu ku dhashay okay marka 4 bil oo dambana cunuga meeqa ku siyaadayso 4 bil oo dambe cunuga ayadana way sii naaqosay oo waxa ku siyaadaysa 250 ayaa ku siyaadaysa bishii oo 4 bil oo dambe dhan 1 kiilo ayaa cunugii ku siyaadayso rubuc ku siyaaday ibil waxay ahayd 750 way isa soo dhintay waxay imaatay 500 waa nus ay imaatay 500 ay imaatay hadda way isa soo dhintay waxay imaatay rubuc 250 kilogram ayaa cunugii ku siyaadaysa 4 bil oo dambe okay marka isku dar 4 bilo koowaad cunuga waxa ku ziyaaday 3 kiilo 4 bilo dhaxan waxa ku ziyaaday cunuga 2 kiilo waa 6 4 bilo dambe waxa ku ziyaaday 1 kiilo waa meeqa 7 miisaanku ku dhashay ku dar marka cunugaada hadii uu 3 kiilo ku dhashay sanadka koowaad cunuga waxa laga rabaa 10 kiilo inuu ahaado marka waa hadii asaas u xisaabiso waxaan dhahnay 4 bilo koowaad cunuga min 750 kilogram ku darsamayso cunuga 4 bilo hore min 750 kilogram markay ku darsanto cunuga wuxuu imaanaa raari naqda wax yar waa mashquulay waxaan 4 bilo koowaad cunuga waxa ku ziyaaday min 750 kilogram oo ahayd 3 kiilo in cunuga ku siyaaday bishii 4 bilo koowaad 4 dhaxan waxa ku siyaaday cunuga min 2 4 dhaxan waxa ku siyaaday 2 kiilo laana bish dhan waxa ku siyaaday 500 kilogram ay ku siyaaday cunugi oo waxa ku siyaaday 4 bilood oo dhaxan 2 kiilo marka 3 kiilo 4 bilo hore ku siyaaday 2 kiilo oo 4 bilo dhexe ku siyaaday iyo 1 kiilo oo bish 4 bilood u dambeysay ku siyaaday meeqa imaanay 3 2 1 waa meeqa imaatay 6 kiilo 3 kiilo 4 bilo kood ku ziyaaday 2 kiilo 4 bilo dhexe ku ziyaaday waa 5 kiilo ilaa iyo 1 kiilo ah 4 bilood u dambeysay 9aad 10aad 11aad 12aad ayada dhan 1 kiilo ku ziyaaday liana rubuc ayaa ku ziyaaday bishii 250 kilogram rubuc ku ziyaaday cunuga wuxuu cunuga imaana 6 kiilo okay 6 kiilo hadoo imaaday cunugaada meeqo ku dhashay 3 ma ku dhashay 3 hadoo ku dhashay 6 kiilo ku dar 9 kiilo laga rabaa in cunugaada ahaado hadii 3 bar oo cunugaada shahadeeto ku dhashay markii uu dhalanayay 9 kiilo oo sanadkan kood ku ziyaaday meeqo noqona 9 kiilo bar ayuu noqona hadii cunugaada 4 kiilo oo ku dhashay hadirtaan cunugi 6 sanadkan gudihiisa dhan ay 6 kiilo ku ziyaaday cunugaada waxa laga rabaa inuu ahaado 10 kiilo laga rabaa inuu ahaado liana 6 kiilo ayuu ziyaadaa sanadkii oo hadhowtu waxay imaanay 6 oo ziyaada ilaa 4 oo ku dhashay 10 ayay imaanay marka hooyadaas ayaa laga rabaa inay u xisaabiso hadii cunugeeda 2 bar oo ku dhashay waa inay taas ku xisaabisaa liana sanadkii dhan 6 kiilo ku risaarana cunuga 3 kiilo koreys 4 bilo u horeyso 2 kiilo koreyso 4 bilo dhexe iyo 1 kiilo koreyso 4 bil oo u dambayso waxay ku total isku noqonay 6 kiilo oo cunuga ku siyaadayso waxa ku daray cunugaada meeqo ku dhashay 3 haduu ku dhashay 9 laga rabaa 4 kiilo haduu ku dhashay sanad markuu jiro cunugaada 10 kiilo laga rabaa hadii cunugaada uu ku dhashay 2 iyo bar hadii uu ku dhashay 2 taas in adiga u xisaabisid ayaa laga rabaa markaas 6 kiilo sanadka koowaad waxa ku daray cunugaada meeqa kiilo ayuu ku dhashay markaas ayaa ogaanay in cunugaada korinshihiisa ay tahay meeshii loogu talagalay iyo in uu ka yar yahay ku badan yahay hadii 1 kiilo oo ka yar yahay wax dhibaato ma lahan hadii 1 kiilo uu ka badan yahayna wax dhibaato ma lahan laakiin hadii ay aragtid in 2 kiilo wax ka badan uu ka yar yahay cunugaada korinshihiisa waxa haboon in cunugaada dhakhtar aala aadid kaasoo qad hadii cunugaada uu ku dhashay 3 kiilo sanadkii koowaad markay dhamaatay meeshii 9 kiilo laga sugo inuu cunugaada ahaado haduu 7 kiilo noqdo 2 kiilo wax ka badan ayaa is dhintay marka waxa laga rabaa markaas caawinana dhakhtarka xarunta la xiriirtay si ay u ogaatid korinshaada cunugaada maxaa ka qaldan marka hadii 9 laga sugayo kala 2 kiilo ka badan cunuga ay ku siyaadani markaas oo kale maxaa korinshahan saa'idka ah keen ayadan in ogaatid waa muhiim marka intaas waxaan kaga bixinaa sanadkii koowaad oo aan u maleynaa inaan saa'id ugu celceliyay si ay u fahantiin saa'id ayaan ugu celceliyay marka ay u fahantiin ay ahayd sanadka koowaad markuu dhamaado cunugii sanadka labaad sanadka koowaad ilaa sanadka labaad meeqa ku siyaadayso meeshan waa meesha isbedelka hooyooyinka ee dareemaan in cunugii cunto uusan cunaynin awataadkii uu ka xiran yahay cunugii uu asaga dhan korinshihiisa inuu yar yahay u maleeyaan liana hooyada waxay aragtay sanad dhan cunugii 6 kiilo ku siyaadaysay
isbedel weyn ayay dareentay sanadkii koowaad. Sanadka labaad meesha cunuga sanadkii koowaad markuu dhashay ilaa hal sano uu ka jirayay 6 kiilo ay ku siyaaday hadda 2 kiilo bis ku siyaaday sanadka dhan 2 kiilo ku siyaaday cunuga li'aana miisaan ma qaadanayo cunugii dhirar ahaan ayuu u dheeraanaa haddii ta cunugii korinshihiisa hilib ahaaneed ayaa koraya laakiin sanad markuu cunuga jirto ilaa 2 sano uu ka gaarayo cunuga dhirirkiisii ayaa koraya oo miisaan ma qaata ilmaha oo cunuga sanadkii oo dhan waxa ku siyaaday 2 sano marka haddii cunugaadii uu 4 kiilo ku dhashay sanadkii kood markii uu dhamaato cunugaadii 10 kiilo uu ahaa hadda markuu 2 sano jiro 12 kiilo leewaa 2 kiilo bis ku siyaaday markuu 3 sano jiro 2 kiilo ku sii daray haddana 14 wuxuu noqonaa 4 kiilo marka saas u xisaabinay sanadkii oo dhan 2 kiilo ayaa ku siyaadaysa cunugaada haddii mar cunuga uu gaaro 1 sano 1 sano markuu gaaro 1 sano ilaa 2 sano 2 kiilo ku siyaaday sanadkii oo dhan 2 sano ilaa 3 sano 2 kiilo ayaa ku siyaadaysa sanadkii oo dhan 3 sano ilaa 4 sano sanadkii oo dhan 2 kiilo ku siyaaday marka hooyooyinku waxay dareemayaan inuusan cunuga wax cunto ah qaadanaynin li'aana korinshihiisa miisaan ma ziyaadayo oo sanadkii oo dhan 2 kiilo ayaa ziyaadayso cunuga marka cunto saas ah inuu qaato uma baahno insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan inay fahanteen insha Allah ilaa iyo xad inta aan isdhihi karo hooyooyinku way fahmayaan waa ku celceliyay insha Allah inay fahanteen ayaan rajaynaa haddii aad fahmayso ku adkaata mar labaad daaro mar saddexaad daaro si aad u fahantid insha Allah inaad fahmi doontiin ayaan rajaynaa haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtadan u sii share garayso dhawaada